saadaasha naxdinta leh ee Nostradamus ee sanada 2021. Dadku aad ayay u xiiseynayaan inay wax ka ogaadaan mustaqbalkooda. Markaan ka hadlayno Nostradamus iyo Baba Vangana, haba sii sheegin oo waxay helayaan dareenka dad badan oo doonaya inay wax kala socdaan saadaashooda. Haddaba maxay saadaaliyeen? Tani waa mid soo jiidanaysa dadka. Maxay yihiin saadaasha Nostradamus ee sanadka 2021? Hadda waxaan ka wada hadlaynaa saadaalinta Nostradamus iyo Baba Vanga. Laakiin waxaan sidoo kale isku dayi doonaa inaan saadaalino dhacdooyinka dhici doona 2021. Nostradamus wuxuu dhashay sanadkii 1503. 1555 wuxuu qoray buuggan oo magaciisu yahay wax sii sheegidda. Buuggan wuxuu lahaa 942 afraalaab ama gabay, iyadoo halkii qarni uu la mid yahay 100 gabay. Gabaygana wuxuu ka kooban yahay ilaa 10 sadar oo xukun ah. Marka 100 xukun ah waa hal qarni. Waxaa jira 10 qarni, iyadoo qarniga 10aadna ay ku jiraan oo keliya 42 gabay oo uu ku sii saadaaliyey waxa dhici doono. Ma lagu fahmi karaa gabayadan aqrin oo keliya? Maya, waxay ku jiraan luqad astaan gaara leh oo cid walba aynan fahmi karin. Waxaa jira dad ka shaqeynaya inay furfuraan luqadda sumadda leh. Dadkan naxwaha luqaddaasi ku dheereeya ee kelmadahani qaataan waxay ku eegaan gabayada qoran ee sanadkaasi loogu talagalay waxa uu buuggu ka saadaaliyey, oo haddii aysan dhicin sanadkaas gaarka ah ee loo qorsheeyey, waxay gabayadaasi u wareejinayaan sanadka soo socda. Waxaa jiray been abuur waqtiyada qaar lagula kacay buugga, laakiin mararka qaarkood buuggu wuxuu si cad u saadaaliyey mustaqbalka. saadaasha koowaad ee buuggan ayaa waxay tahay sirdoonka macmalka inuu xukumi doono adduunka. Sanadkii hore buuggan wuxuu saadaaliyey in xayawaanka iyo aadamuhu ay wada hadli doonaan, isna fahmi doonaan, balse sanadka 2021 wuxuu buugga saadaalinayaa in riboodyo cilmiga farsamada gacanta ah ku takhasusay ee dunida xukumi doonaan. sirdoonka macmalka ah. Cilmi baaris Shiinaha lagu sameeyey oo sirdoonka macmalka ah ku saabsan waxay ahayd mid ay ka soo baxday natiijo la yaab leh. Forbes waxay soo saartay maqaal arrintaa ku saabsan. Qodobku wuxuu saadaalinayaa sida UN-ku ay u shaqayn doonto 2021. Baarlamaanka Yurubna waa inuu hoos yimaadaa sharci dejiyaal sirdoonka macmalka ah. Marka sirdoonka macmalka ah wuxuu hubaal xukumi doonaa dunida 2021. saadaasha xigtaa waxay tahay inuu dhici doono dagaal u dhexeeya 2 dal oo isbahaysi ah. labada dal magacyadooda lama sheegin. Wuxuu yidhi magaalada Ilaah waxaa ka dhici doona onkod weyn. Ma wadamada Carabta baa? Ma Israa'iil baa? Waxaa jira fursad dagaal oo u dhexeeya 2 dal ee isbahaysiga ah. Dagaalka hadda uu ka dhacayaa dunida meel kasta. 2021na waxaa laga yaabaa inaan aragno dagaal kaasoo u badan tahayba mid suurtagala dhicidiisa. saadaasha xigtaa waxay ku saabsan tahay zombieska ama juudaanleyda dunida. juudaanleydu mana burburin doonaan? saynisyahanada Ruushka u dhashay waxay abuureen hubka noolaha. Waa cirbad yar. Haddii jirka bini'aadanka lagu mudo uu qofkaasi isku bedeli karo qayb bini'aadan ah iyo qayb zombiyaan ah. Hubka waxaa bedeli doona DNA-da dadka. Kani wuxuu noqon doonaa hubka noolaha ugu weyn ee waqtigana la isticmaalayo. Ruushka iyo jaamacadda Oxford waxaa ka jiray arrin dhexdooda taallay. Ruushku wuxuu ku dhawaaqay haddii ay duraan talaalka Oxford lagu sameeyey ee loogu talagalay la tacaalidda cudurka hadda taagan ee safmarka ah in insaanku uu isku bedeli doono daanyeer. Marka juudaanleeyay ama daanyeer markaan egno xagga Nostradamus waa iskaga mid. saadaasha xigtaa waxa ay tahay in gaajo baqdin leh ay dhici doonto iyo abaar daran
cunto yaraan ayaa laga dareemayaa adduunka oo dhan. 2020kana cudurka safmarka ah wuxuu ku dhuftay adduunka. Adduunku wuu yaabay. Dad badan ayaa shaqo beelay. Dad badan ayaan ogeyn xaalkooda siduu noqon doono. Dankeena Soomaaliya markaan ka hadlana wuxuu marayaa xaalad adag marka la eego cunno yarida ba'an ayaa la filayaa inay sii ahaato mid sareysa ilaa May 2021. Arrintan oo ay keeneen saameynta kala duwan ee daadadka deegaanka iyo roobka oo yar awgood qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya iyo hoos u dhaca dhaqaale ee ku xiran COVID-19 ka faafa dabayaaqada 2020ka. Dadka wajahaya cunno yaraanta ayaa ka sii xumaan kara sida hadda ay yihiin oo waxaa la leeyahay waxay gaari karaan ilaa 2.5 milyan oo qof haddaan wax meel loo sii dhigin ama la gaarsiin gargaarka loogu talagalana in dhibaatadu ay sii faafi doonto. Shiinaha waxaa ku dhuftay roobab mahiigaana. Shiinuhu dal ahaan ma arkeen macluul aynan weligeed aragba, laakiin iyada oo ay saas tahay haddana marka xogta lagu saleeyo ee sanadlaha 2020ka macluul ba'anka ayaa adduunka ku dhufan doono. Tani waxay saameyn doontaa dalal badan. Marka waxaa jira fursad aad u sareysa oo ah in saadaasha Nostradamus ee ah in abaar weyn ay dhici doonto ay macquul tahay ama ay dhici karto. saadaasha xigta ee uu saadaaliyay Nostradamus waa geela weyn. Waa maxay geela weyn? Geela weyn wuxuu sawirayaa wadamada Islaamka. Adduunku wuxuu hoos imaan doonaa xukunka Islaamka. Wuxuu saadaaliyay in wadamada Yurub ay maamuli doonaan wadamo muslimiina. Sanadkii 2020ka oo gabagabadan maraya waxaa ku jiray maqaalo internetka la soo geliyay oo badan, iyadoo 2019kii kooxda ISIS lagu magacaabo ay la yimaadeen dubba aad u weyn. Loona saadaaliyay sanadka 2020ka oo hadda aan ku jirno inay wadamo badan oo Yurub ka mid ah ay maamuli doonaan. Sidee wadamada Yurub ay u maamuli doonaan dalal Islaamiga? Tani waa su'aal mug weyn. Suurtagal ma tahay in saadaalintani rumowdo? Waxaan si faahfaahsan uga hadli doonaa arrintan muuqaalo kale. saadaasha xigta ee uu saadaaliyay Nostradamus waxay tahay burburka qoraxda ku imaanaya. Musuqmaasuq cadceedda sare ayaa dhici kara sanadka 2021. Sidee tani suurtagal ku noqon kartaa? Saynisyahanadu waxay sheegeen inay jirto suurtagalnimo sare oo ah in cadceed burburku ay dhici karto sanadka 2021. Sidee satelleedayaashu ay u sii saadaaliyeen burburka qoraxda? Baba Vanga waxay saadaalisay in duufaanada qoraxdu ay dhici doonaan sanadka 2021. duufaanta cadceedda waxaa lagu sharixi doonaa ama aan ku faaqidi doonaa muuqaalada dambe ee aan kaga hadli doono Baba Vanga iyo saadaalinteeda. saadaasha xigta ayaa waxay tahay dhagax dhulka ku soo dhici doona. Sanadka 2021 dhagaxa ayaa laga yaabaa inuu dhulka ku soo dhaco. Ereyadiisa saxda ah Nostradamus waxay ahaayeen cirka qof baa dabka arkaya iyo raad dheer oo dhaxyaal ah. Marka shay dhalaalaya ayaa dhulka ku dhacaya oo dhulka ku keenaya burbur weyn. Saynisyahanadu waxay ku raad joogeen xidig istiraatiiji ah oo la yiraahdo 2009 KF1. waxaa jirta fursad saadaashiisu tilmaamayso sanadka 2021. goorma ayuu 2009 KF1 dhulka duqeyn doonaa? saynisyahanadu waxay saadaaliyeen in dhulku ku dhici doono sanadka 2022. saadaasha ku saabsan asteroidkan ama dhagaxan ma rumoomi doontaa? Dhulka miyuu ku dhici doonaa dhagaxa? Dhagaxu waxaa laga yaabaa inuu ku dhufto dhulka sanadka 2021. waxaa la soo sheegayaa in saameynta ay 12 jeer ay ka weynaan doonto bombooyinka Hiroshima. sidaa darteed waxaa la iskaga digayaa in dhagaxani ay dunida u geysan doonto burbur weyn. aan aragno oo aan rajayno intani aysan weligeeda dhicin. ugu dambeyntiina Shiinaha ayaa xukumi doona adduunka. gabayga wuxuu ka kooban yahay ereyga dragon. dadka go'aamiya ereygan waxay saadaalinayaan in dragon uu yahay ama loola jeedaba dalka Shiinaha. waxaan sidoo kale ka wada hadli doonaa saadaasha Baba Vanga. waa maxay isku ekaanshaha saadaasha Nostradamus iyo Baba Vanga?
ee sannada 2021. hadday isku eg yihiin, sayniska muxuu ka leeyahay arrimahaas? dhacdooyinka la saadaaliyay ma dhici doonaan sannadka 2021? Baba Vanga waxay leedahay dadka waxay isticmaali doonaan lacag leh midab gaduudan. waa maxay lacagtan waraaqaha midabka cas leh? aynu kaga wada hadalna arrimahan muuqaal kale.